Donald Trump ayaa mar kale guuleystay 8 sano ka hor markii uu si la yaab leh uga xanaaqay Hillary Clinton iyo 4 sano kadib oo Joe Biden xukunka la wareegay waxa uu hadda noqday Trump mar kale madaxweyne. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And guushiisa waxay ka dhigan tahay soo laabasho cajiib ah. waxa uu ahaa nin xukunka kaga degay sumcad xumo ka soo gaartay 6 Janaayo taasoo dhaawac u geysatay 4 sano oo kale oo safar ah ayuu u soo galay inuu xukunka ku soo laabto. Isniintii ayuu Trump sheegay in ololihiisa uu guul weyn ka gaaray isbahaysiga Carabta iyo Muslimiinta ee gobolka Michigan kuwaasoo sheegay inay soo jiidatay ballanqaadiisa nabadda. waxaan dhisanaynaa isbahaysiga ugu weynaa uguna xooga ballaarnaa taariikhda Mareykanka waxaana ku jira tiro badan oo Muslimiinta iyo Carabta Michigan oo doonaya nabad ayuu Trump ku soo qoray bartiisa X ka hor codeynta inta aysan dhicin. dhanka Soomaalida inta badan waxay u codeyn jireen xisbiga dimuqraadiga hadda waxaa jira tiro badan oo taageeray Donald Trump. Soomaalida ayaa ku taageeray in markii uu xilka hayay uu dhaqaaluhu xoogganaa inkastoo jireen walaac ku saabsanaa siyaasadihiisa soo galootiga. Faisal Deriye oo ah gudoomiyaha Afrikaanka xisbiga Jamhuuriga Minnesota ayaa ku adkeeyay Soomaalida Mareykanka inay u codeeyaan Trump isagoo sheegay in Soomaalida Mareykanka oo ay ku jiraan darawalada gawaarida xamuulka ay dareemeen dhaqaalaha in uu fiicnaa markii uu xilka hayay Trump. tani waxay muujinaysaa inay soo baxeen Soomaali taageeraysa madaxweyne Trump taas oo meesha ka saartay in dhammaan Soomaalidu ay taageeraan xisbiga dimuqraadiga. intii uu ku jiray ololaha Trump si cad uma dhaliilin Soomaalida sidii uu hore u sameyn jiray. waxa uu isku dayay inuu soo jiito inta badan dadka Muslimiinta ah ee ku nool gudaha Mareykanka. sanadihii uu xilka hayay muddo xileedkiisii hore waxa uu marar badan soo hadal qaaday madaxweyne Trump Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar. sidoo kale wuxuu ku daray Soomaaliya 13 dal oo Muslimiin u badan oo xayiraad dhanka socdaalka ah uu saaray. madaxweyne Donald Trump iyo Ilhaan Cumar ayaa marar badan warbaahinta isu mariyay hadallo kulul iyo eedo. xilligii ugu darnaa waxay ahayd markii Trump ugu baaqay Ilhaan inay is-casisho kadib markii ereyo lagu tilmaamay yuhuud nacayb ay ku qortay barteeda Twitterka. Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibaanada aqalka Koongareeska Mareykanka ee taageersan Israa'iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuudda. arrintaasi oo saabtay in gudoomiyaha Koongareeska Nancy Pelosi ay sheegtay in Ilhaan looga fadhiyo inay raaligelin ka bixiso hadalkaasi. wixii intaas ka dambeeyay waxaa jirtay marar dhowr ah oo uu Trump wax ka sheegay Soomaalida. bogga internetka ee telefishinka CNN ayaa hadda ka hor daabacay xog laga soo xigtay buug ay qoreen wariyaal ka tirsan wargeyska The New York Times oo ka hadlaya sida madaxweyne Trump uu u neceb yahay qaxootiga ka yimid Soomaaliya. sida lagu sheegay qoraalkaasi CNN bilihii ugu horreeyay ee muddo xileedkiisii hore madaxweyne Trump waxa uu Elaine Dug oo xilligaasi ahayd kusimaha arrimaha ammaanka gudaha weydiiyay sababtay u mamnuuc laadahay qaxootiga ka imaanaya Soomaaliya. dhammaadkii bishii Janaayo ee sanadkii 2017 ayuu madaxweyne Trump xayiraad ku soo rogay ajaanibta ka imaanaysa 8 wadan oo ay Soomaaliya ku jirto kadib amar madaxweyne oo soo saaray. sida lagu xusay buugaasi madaxweyne Trump iyo Stephen Miller ayaa u muuqda inay si gaar ah u necb yihiin Soomaalida waxayna Soomaalida tusaale ugu soo qaadan jireen markastoo ay doonayaan inay muujiyaan halista dadka qaxootiga ah ay u keeni karaan Mareykanka. markii doorashada loogu guuleystay Trump waxa uu ku mashquulay dacwadda loo haystay iyo fadeexooyin soo wajahay. ugu dambeyntii ololihiisii doorashada 2024 kama marnayn hadallada nacaybka ah waxauna inta badan ka hadlay nacaybka uu qabo soo galootiga sidii hore u dhici jirtay. markaanse Soomaalida kuma soo darin. not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that